waxaana wanaagsan idil ahaantiinba waa mar kaliya barnaamijkeeni gungaar barnaamijka gungaar waxaan ku dul istaagaynaa shabakad u qaabilsaneed al-shabaab soo gelinta qaraxyada muqdisho oo ay burburiyeen sirdoonka Soomaaliya ee NISA macalin bare xasan boy oo 22 jir ah iyo sayid cali aadan nuur steamboy oo abti u ahaa xasan waxaana labadooduba ay ahaayeen rag aad u isticmaala balwada noocyadeeda kala duwan kuwaas oo shilimaad ay ku qayilaan ku bedelan jiray inay gawaari qaraxyaha soo geliyaan magaalada muqdisho si loogu xasuuqo shacabka xasan macalin bare waa wiil dhalinyaro oo ay noloshu ku adkaatay kana saaqiday waxbarashada waxaana uu kaga tegay fasalka afraad ee dugsiga hoose iskuulha qaataya المين أفراد أبقار كدوان كبح shaqadii ugu horeysay oo qabto waxay noqotay inuu awowgiis dukaan u gado balse markii uu dhintay waxa uu bilaabay xalwa karin aniga markii hore asalkeyga waa ku shaqay dukaan gada jiray awowgii dukaan gada jiray awow markuu dhintay shaqadii waxay noqotay xalwa karis banti xalwan kari jiray xalwadii aynu waxaan ku kari jiray magaalada markuu kadibna waxa uu xasan u soo wareegay duleedka muqdisho halkaas oo uu ku iibin jiray dukaan ay leedahay qof dumar ah isagoo ka qaadan jiray qadar dhan $2 maalinkii dukaan waxa iska leeyahay xawlada kornaa iska dukaankii aan gaday aniga gabadha astaan dukaanka ka tagay dukaan waxaan ku qaaday jiray gabadha maalintii ay siinaysa mar $2 mar $1 siinaysa isagoo dukaanka ka shaqaynaya ayay salaan abtigiis oo ku dhiirageliyay inuu isaga tago dukaanka isagoo u sababeeyay inaysan mudnayn dumarka in loo shaqeeyo wuxuuna aqbalay in abtigiis oo og yahay inuu al-shabaab yahay uu kala shaqeeyo falalka argagixisanimada markaan dukaanka ka tagay adi wax saad uma dhahayn barnaamijkaana faraha la galay waalid horta wiilkiis muutaar badayacay sambir markuu arkay gaajideeda iyo waxaas markuu arkay oo wuxuu u yiri dukaankaas iska dhaaf dukaankaas iyo barnaamijka iska dhaaf uu yiri naag maalkeeda in wax jir ma ahan ase ahaatee aniga maxaa lahaa asiga wax ku siinaayo macna aniga macna masuuliyad qaadaya banki saasina ahaani xasan abtigiis oo doonayay inuu helo qof dhalinyaro oo ka caawiya falalka argagixisanimo waxa uu markiiba bilaabay inuu u diyaariyo shaqooyinkii rasmiga ah ugu talagalay taasoo ahayd inuu ka caawiyo geynta gaadiidka qaraxyada goobaha dadku ku badan yihiin waxa uuna u diray goob lagu barto wadista gaadiidka oo ku taala halka loo yaqaan tabeelaha ee duleedka muqdisho halkaas oo 5 maalin ku baranayay wadista gaadiidka asii macna waxa uu dhahay baawar macna wadis mataqaana ma aanu baawar san ma aqaani markaas oo mar wuxuu ugu yiri baawar macna baawar san waxaan dhahay maxaan ku falaa aniga waxa uu dhahay darawal ahay baawar heli karna aan ku wada shaqeysano sida biilka oo kale ana wadid al rabaas abu shaqeystaa al rabaas dhahay aniga lama wax isu geey tagana lama wax isu geey xasan leedahay uu dhahay aad shaqo maasid baawar wataan ka faa'iideyso اوكي على ديار واي باورتي marka waxaan ku galay aan ku shaqeysan doono باور tabeelahan ku bartay macna baawrta okay tabeelahan macna baawrta oo loo kiriyaa mud oo loo kiriyaa baawrta wareegi $1 waay baawrta macna meesha ku waday wareega soo gelinay $1 wareega soo gelinay $1 baawrta in automatic aid saga bartay la muddo 5 maalin amal waday xasan waxa uu markii dambe abtigiis u soo jeediyay inuu ku tababarto gaari uu og yahay inuu qarax ku xiran yahay kaas oo abtigiis ku baray habka wadista gaariga waxaana gaarigaas oo noociisu ah fillar cadaan ah uu ku tababaranaya 2 usbuuc markii kale asaa gaar loo keenay oo fillar tii hadina ku bartay tii dawladda ay soo qabanayso oo ka gudiyo qorxay dawladda soo qabanayso macna waxa ugu jiray gaar la keenay oo bilaa waana xariisan yahay anna qaraxna ku xiran amrana leema sheegin kadib wuxuu yiri wala sheegay qaraxa ku xiran wuxuu yaalaa waxay dhahan asiga widow markii aan qofku wareejin doono in kale wuxuu dhahay macna aniga moogi laakiin waa yaala oo dhahay waa say dhax mushaaxina oo dhahay warkaas askay baashalina sidii baawrka asaga baashaleeni maro macna oo asoo tusiyo maro ana wado
gaarigii aniga laakiin agtar kumaan noqon weli baabuur sida loo wado xasan waxa uu abtigiis u dhiibay gaarigii qaraxa ahaa inuu u geeyo qof ismiidaamiya balse intuusan gaarin goobtii bartilmaameedka ayuu galay shil sababay inuu qof rayida dhaawacmo waxaana uu wacday abtigiis oo qofkii waxyeeladu ku gaartay ku xaliyay lacag dhan $40 gaarigan wad waxa geenaysaa uu yiri iska guday qof meesha jooga la yiri ku wareeji anagana meesha waxa u dhigay matay karo band aku dhabeena gaarigan inkiis u geey okay aan ku dhahay gaarigan soo waday soo dhaqaajiyay meeshiyaano macna u socdo qadarta alle qafaan ku dhacay dad maraan ku dhacay dilka wax gaarsiin abshaan oo waxaan dhahay aniga inaan dilaan dhaynaa man gaari ku dhuftay soo carar meesha imaaday oo qayliyay waa ka tagay aniga baxo iyada ka tagay ninkii oo qabtay gaariga saare ninkii soo xaliyay kadib wacay ana xaafadii u socdaan soo laabtay ana xanaagsan ma soo laabtay dina gaarigan fuulay ninkii maxaa ku xalisaan dhahay ninkii waxa uu aniga lafteeda wax kuma haysto laakiin telefoonka si sameey ninka waa kii sheegay ninka telefoonkiisa maana oo u sameeyay $40 u tuuray xasan waxa mar kale lagu amray inuu wada gaariga qaraxa balse isagoo aan darawal fiican ahayn awgeed waxa uu galay haddana shil kale balse markan dambe waxa ku daba jiray asirdoonka Soomaaliya oo xogta qaraxa helay kuwaas oo markiiba qabtay xasan balse intii ay soo socdeen kooxda miina baarayaasha ayuu qarxay gaarigii hadana waxa dhahnay waa shil iska ilaali gaari ma hasgay aye markaan u socday markaan meeshii aan ku dhawaaday motor back min mataajaan ku dhacay aniga waxa waaye hadda haalan qof oo barnaamijka ku fircoonsan motor iska daayay horta sharafa ku socdaa sax motor back ku jirto oo faraaqay motor isaga dhacay taana macnaha waxay sheegay in aniga wili gaariga macnaha in gaari macnaha travel rasmi ahayn macnaha motor back minta Allah waa maray dalkiista waa motor ku dhacay madama ku dhacay kadib motor marka dama fiiriyo qof kala ma joogo mar waxa asir ka soo askara ma joogtaa marka ay aragtay askara meesh taagneed bay aragtay markaas ay askartii macna hore uu qabtay qaluu qabtay gaarigii wado istaagay uu yiri waa istaagay in askara ay imaaday ilbaabku furay gaarigii macna furo ku dumiyay soo degay oo dhahay waa soo degay oo dhahay maxaa isku waaleen in bajaada ku dhacaan dad ku dhacay kadib miska carray oo dhahay waxma hayna aniga waxa waan dhahay bajaadeen waxa waan dhibkooda iska badan ana baa waxaan dhahay bartu ayaan dhahay ani asagoo sheekadii wada hayno meel ii fadhiisiyay gaarigii tageen telefoonka gaarigii ay soo qaadeen telefoonka marka agteeda la keenay telefoonka marka soo dhacay telefoonka soo qeylinaya maqlay soo dhacay aniga waa fadhiyaa ma telefoonka ma qabtay amadee ma telefoonka daqad macna waxa uu dhayn gaariga inuu ku halayaabo ma telefoonka gacanta ku hayaan markaasani aan gaariga inuu ku halayaabo markaasuu dhayn ninkan in shaatiga la soo dhayn marka ama marka waxa uu dhayn halay xiro shirka laga siibay gacmaha marka laga xiray marka laga xiray korkii igu taagan telefoonka igu fiirinayo gaariga qarax xasan waan isku diyaarin isagu inuu isqarxiyo balse ahaa gaarsiye qarax qofka loogu tala galay ismiidaaminta waxa uu hadda dareensan yahay in kooxda al-shabaab iyo abtigiisa ay yihiin kuwa aan naxariis lahayn oo xitaa doonaya inay isaga lafahantiisa dilaan hadii barnaamijkii oo fashil la arkayna ana beeltashinan gaari mal aqrimo marka xaaladii ay sheekar markaas cid sheekarta malaha ay markaas dawladda xaaladii sheekarta waxaan aaminsanahay aniga hadaan gaariga aan saarnaa la waxaan aaminsanahay in la qorxi lahaa aniga macna abtiga macna isma dhihin abtiga qorxinaya xasan waxay sirdoonka Soomaaliya oo isticmaalaya macluumaad gaar ah qabteen 26 bishii 11 ee sanadkii 2018 waxaana sida uu dhagar qabaha laftigiisu qirayo ay sirdoonku feejignaan ka qabeen gaariga uu waday ninkan iyagoo ka fogaaday inay qabtaan telefoonkiisa si ay u xakameeyaan xogta in la qabtay si aysan kooxdu u soo dirtay u qarxin gaariga uu waday
balse intii ay ku jireen xiritaanka aagga uu gaarigu yaalay oo ahaa meel suuq ah oo saxmad badani ay ka jirtay kuna amrayeen dadweynuhu inay ka fogaadaan ayuu qarxay gaarigii oo sababay dhimashada 12 qof oo ku jiro Dhame Xooga Maxamed Muxiidiin iyo hooyadiis Xaawo Xasan Maxamed halka dhaawacuna uu gaarayay 6 qofood fariistay telefoonka markii loo keenay ninkii oo iga celi telefoon loo keenay telefoonka ay dhan ma soo aragnay telefoonka markii maana telefoonka waa soo dhacay telefoonka waa dhawaa telefoonka maana gaaro isaarnaa telefoonka markii waa soo qaaday telefoonka markii wuxuu dhacaa telefoonka hadoo qabto markii wuxuu dhahay ama gaari qarxa wasaani maqlay markaas macna telefoonka hadoo macna oo qabto ama gaari qarxa telefoonka saas oo hayo oo fiirinayo laga baxay loo soo celiyay laga baxay loo soo celiyay markaan gaari xaq u yeelaa aan inta la ka fadnaa gaari markaa qarxa tirada qasaaraha ayaa ka badan lahayd intaas haddii aysan ciidanka nisa ka fogeyn lahayn aagga shacabka maadaama uu suuqaasi ahaa mid aad u mashquul badan halkan waa goobtii lagu qabtay Xasan waana halka uu ku qarxay gaariga fildarka ee uu waday kaasoo loogu talagalay in dad shacab lagu xasuuqo wiilkan dhalinyarada waxa uu joogay goob aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay waxaana uu ka sheekeynayaa sidii ay maalinkaas wax u dhaceen wallaahi maalintii waxa arkay baawur ana horse waxa ku jiray hooshayda shaqo waxa arkay baawur igu soo socdo waa cararay miiskayga ku dhacay kadib markaa soo noqonay abaar dhan baawurka meesha soo u yeelay anagoo walaacsan naxsan shaqadeena xiranay hal mar waxa maqalnay hal mar sabaaxan qarax oo aad iyo aad u xoog badan wixii hanti iyo wixii lacag meesha ku haystay meesheena u baaba'day anagana naftan Ilaahay baa ugu badbaadiyay meesha bismillaahir rahmaanir dad badan oo meesha ku dhaawacmay oo ku dhintay oo ku rafaasan ana ilaa hadda saahay iyo si kale waaba dareemi waaye wallaahi maqaayada waa u jeedaa dhismo labaad inay gashay qaabkii hore saameen waa laga bedelay cabitaankii miiska saameen miiska dawo burburay marka rafaad aad iyo aad xoogan badan aan soo maray Xasan iyo abtigiis waxay ahaayeen kuwa isticmaala balwadaha jaadka shiishada iyo taabuuga mana aysan tukan jirin salaad waxayna ahaayeen kuwa u tababaran falalka argagixisanimo ee al-shabaab balwada isticmaalin qaad iyo xanuun intifaax isticmaalay halkan waa gurigii ay deganaayeen Xasan iyo abtigiis gurigan uma ekeen xarun ay argagixisa leedahay waxaana isugu imaan jiray dhalinyaro balwadu ay dilootay kuwaas oo halka ku qayili jiray kuna isticmaali jiray noocyada kala duwan ee balwada ujeedaduna waxay ahayd inaan la garan gurigan inuu yahay guri ay isticmaalayaan argagixisada al-shabaab meel soo imaado jaad lagu cuno horta dhalinyaro aday qayisho jaad ay cunto nin wala boorta asagato هذا اللي كل ما أنا قيدي بس نقول بوحيس أساقته أو كلمة معناه حرة بس إن إلا باشالو من كشتو إساسا لي ماذا مقيد معنا قف معنا قف عقدة مجرد إلا قف بوديني وما أنتو حما هي ساحة وإن هذا كون قبنا عمل نقول لهموي قف معنا جار قف جاد وهذا مركز وحب الوشي لك جاد بالوشينا حسن وحول ولا كما هي حجم قولك يا دنبك وقلايا وكل أيام مواطنين صوماليين دولة قاعنا أوجرا دولة مركز إن كليبو دولة دام دور تهليد دايو إلما أنا رتني دينيس لكن هي عدالة دخبته أو نوع معنا أو مكاس نحس لي فيرنا أنجال أنا مرة كل دولة
naxariisteeda ma sheegi kari sirdoonka Soomaaliya waxay ku guuleysteen inay burburiyaan shabakadii uu ka tirsanaa Xasan waxayna soo qabteen horjoogihii shabakadaasi oo ahaa Xasan Abtigiis kaasoo isna la maray habka cadaaladda Xasan waxaana lagu magacaabaa horjoogahan Sayid Cali Aadan Nuur Steamboy Sayid Cali waxa uu lahaa xirfado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen darawalnimo makaanig iyo fuundi kuwaas oo ku qarin jiray xirfadiisa rasmiga ah ee shabaabnimo intii markii hore fuundi ahaa marna waa darawal waa motor waa saas makaanig waa الله يا رسول أشهد الروح برس الله ترى ورهونا إسلامي ما تريد الله يا رسول أشهد الروح برس الله ترى ورهونا إسلامي ما تريد حسن يا سيد علي waxay mareen habka cadaaladda ee garsoorka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana loo fariistay maxkamadooyintooda 5 Sebtembar ee sanadkan iyadoo la dhageystay eedda xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda iyo dooda qareennada difaacayay labada eedaysane ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Dhamma Muumin ayaa mid u kala dhigaya eedda loo haysta raggan iyo cadeymaha ay hayaan waxayna soo bandhigeen xafiiska xeer ilaalinta amarag muujina ay ka mid yihiin taarikada furihii gaariga iyo marqaatiyaal ka marag furay garsoorka ciidanka hortiisa mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh qiraalka eedeysanaha koobaad wuxuu ku tilmaamay oo ku sheegay nuqdo muhiim ku jirta kamid aheeday in uu soo wacay Sayid Cali markii gacanta lagu dhigay teleefankiisa laama amniga ay hayeen inuu soo wacay si uu xaqiijiyo goobta qaraxa gaariga inuu geeyay markuu ogaada Sayid Cali in uusan teleefan ka jawaabin Xasan gacantana lagu dhigay automatically gaariga uu qarxay waxay cadeynaysaa Sayid Cali inuu ahay qofka maamulaya ee hagaya gaarigaas ee qarax mas'uulka ah gacanta ku haya awood uu ku qarxay iskala isagoo mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh waxyaabaha qiraalka oo mataqaanaa bixiyay eedeysanaha koobaad cadeynta oo bixiyay mataqaanaa markaatiga ninka dhibanaha gaariga ku dhifteen iyo xiriirka ka dhaxeeyay Sayid Cali iyo Xasan waxay cadeynaysaa in Sayid Cali uu ahay amiirka cidda iska leed hagista awoodda mataqaanaa gaarigaas inuu qarxay dhibaatadaas geystay cidda ku awoodda badneed ee amarka laga qaadanaya amarka iska leeyahay inuu waa Sayid Cali mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh qiraalka uu bixiyay eedeysanaha koobaad waxa kamid ahaa in uu maalmo ku baranayay wadista gaadiidka ee mataqaanaa area tabeelash Ibrahim kidibna ay tageen meel geersha kana soo qaadeen gaarigan fildarka asaga lagu soo qabtay uuna u sheegay Sayid Cali gaari wadowga inta ugu dhiman inuu gaarigan ugu dhameystiray Sayid Cali inuu yahay qof qaraxyada asaga farsameeya awoodana xilligu asagu uu talagalay inuu qarxiyo gaarigaas isagoo qarax ku jiro intaas cabaysan ayuu isbuuc in gaarisu magaalada ku dhaxayo ku barayo mataqaanaa wadista gaariga isagoo og oo waliba u sheegay in gaarigan qaraxa ku jiro halkuu ku jira ka soo saar ee markuu albaabada u fur arki waayay qof arki karta ma jirtay kaalana ku baray qaraxa ku jira gaariga kubaysan oo buuxa ayuu wuxuu baray oo eedeysanaha koobaad inuu darawal noqdo gaarigan meeshii geelira oo geey karo baray waxay tilmaamaysaa farsamada qaraxa oo ku qarxo waxa iska lahay Sayid Cali sidoo kale qareennadii difaacaya eedeysanaha ayaa iyaguna soo bandhigay doodooda ay ku difaacayaan ragga ay wakiilka ka yihiin waxaan codsanaynaa in nimankan laga daayo xabsiga labada eedeysanaha labaad eedeysanaha saddexaad Xasan Cali macallin bare maadaama ay askartii qabatay ninkii baabuurka waday inkaas oo ah baabuurka qaraxa uu ka yimid oo loo maleeyahay qaraxa in baabuurka uu ka imaaday waa loo maleeyahay maalin baabuurka furaya ayaa qaraxay maasa qaraxa riday lama yaqaano ilaahay anaga og ninkaas waxaan codsanaynaa in loo naxariisto oo maxkamaddu
u fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeyo. al-shabaab waxay la yimaadeen xeelad cusub oo ay maleeshiyaadkooda ula baxayaan magacyo aan ahayn abuu iyo magacyadii carbeed ay la bixi jireen waxayna samaysteen magacyo muujinaya anshaxuma iyo balwad iyagoo isticmaalaya dhallinyaro ay diloodeen balwadaha noocyadooda kala duwan. xeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada cabdullaahi kame ayaa soo bandhigay macluumaad arrintaasi la xiriirta. eedaysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore hadday ku gabanayeen diinta islaamka oo magacyada abuu iyo magacyo diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u beddeleen joy steam boy xasan boy magacyo noocaasa isticmaalayeen dad isticmaalaya isqaabkii alkuliistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan wey. dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore haddii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan. hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkuliistayaasha iyo qaabkii maxaa la jiray ii sheegay ciyaalsiyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in maxkamaddu xiran tahay dibna la isugu soo laaban doono. dhageysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedeysane intaas ayuu ku dhameystiran yahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta. waxay tala meel martaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor waxay tala meel martaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela ciidamada qalabka sida shacabku way maadiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way maadiyeen. sagaalkii bishan ayay ugu dambayn maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya go'aan ka gaartay eedda loo haysto eedaysanayaashan. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. bismillaah. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal. 1 xasan cali macalin barre xasan boy 21 jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir. 2 sayid cali aadan nuur steen boy 24 jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir. 3 muxudiin maxamed axmed khaliif CJ 19 jir ah ina maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir. kuwaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada. eedaysanaha koowaad xasan cali macalin barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11aad 2018 dhigay suuqa Kaawagoday ee degmada Wadajir gaari noociisu ahaa fil dhar cadaan ah. gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale. eedaysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa Kaawagoday ee degmada Wadajir. eedaysanaha labaad sayid cali aadan nuur steen boy waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsameyntooda. sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey in uu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyey ku biirista kooxda al-shabaab
qaybteeda qaraxyada soo gelisa magaalada muqdisho isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaarigii ku qarxay suuqa Kaawagoday 26 bishii 11aad 2018 eedeysanaha saddexaad Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyo in uu hay'adaha baarista u sheegay magac been ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayd Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo sidoo kale eedeysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheekh Ibraahim uu geeyay degmada wadajir gaar ahaan suuqa Kaawagoday kadibna uu gaariga shil la galay sidaasna ay ciidamada amnigu ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaarigii uu waday markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Sayd Cali Aadan Nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedeysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda Kaawagoday isagoo sheegay in eedeysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaawagoday markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar cadaan ah uu shil galay sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed